haddii gobolka awdal aanu nahay dhammaan bulshada ku nool farxad weyn oo qiimo leh ay noo tahay badin maayo hadalkayga waxaan la qabaa baahida gobolka waxaana ka taabtay salaadiintii igu horreysay waxayna codsadeen inay kuu sharxi doonaan oo kulan labaad ay yeelan doonaan anigu taa waan la qabaa waxaan la kacayaa waa laba erey baan la kacayaa tahniyad iyo tala bixin guud oo waddanka oo dhan ah aan gobolka awdal oo kaliya ku koobnayn wixii gobolka odaydaydan ku kalsoonahay waxay ku yidhaahdeen iyo waxay ku odhan doonaan waa tahniyada madaxweyne cabdiraxmaan waxaan kugu tahniyadeynayaa madaxnimada aad ku soo baxday muddo dheer aad sugaysay taasi oo shacbigu aw kugu galgalay oo cid walba shacbiga ay ku hadaaqday isbedel baan doonaynaa isbedel baan kii weynaa iyo kii yaraaba oo ku hadaaqay waddanka isbedel baan doonaynaa isbedelkii wuxuu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala inuu adiga madaxnimadii maanta aad ku soo baxdo oo si sharaf leh lagu doortay oo weliba mug leh lagu doortay intaasi waa tahniyad waxaan kugu tahniyadeynayaa safarkii qiimaha lahaa ee aad gashay ee dawladihii caalamka kuwii ugu mug weynaa ama ugu maalqabeensanaa ama ugu magac dheeraay ay kugu marti qaadeen shirkaasoo wixii lagu hadalhayay ugu weynaa uun 3 ero uun ay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dekada maxay hayday barbara iyo iskaashiga ummaddaasi sidii wax loola qaban lahaa shirka muggiisuba intaa uu ahaa taa waa sharaf qiimo leh oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u keentay gaar ahaanna jamhuuriyadda Soomaaliland aad u keentay daninkii aan Soomaaliland hayna ka naxayay isaga u xintaay laakiin magac Soomaali oo dhan wada deeqay haddana hoos loo sii dhaadhaco la yiraahdo Soomaaliland halkay ku taala mantaqaday ku taala la yiraahdo aad iyo aad baa sharaf aan kugu bogaadinaya oday annaga ahaayo Allah u naxariistay dhintay oo la oran jiray Xasan Buguni la oran jiray ayaa inankiisii 62 loo doortay براي مستر كحجين رئيس الوزراء كحجين لبيوت براي صرناء رئيس الوزراء جرم البال لوجيه ولا بيه لحد كان لقى مرتقاضي أذكر هذيك البادئة وحيل أنا كايجين ما واحد لوجيه أو ياري جرم الكي لا الدنيا ده ما رجع الدنيا كلا إلهي حسن يسميها أنا كايجي وياري هذا لا يري عبد من دبوري دولتي الصومالية ما دقائق بهالخايجة مقتبل واحد لا عبد الرحمن محمد مدحوينا دولتي Soomaaliland way dhaqaaqday waxa kale oo jira nin saxaabi ah ayaa nabiga hortiisa shicir ka tiriyay kolkaas uu balaqana samaa majduna wa sanaa'una wa inna lanarju fawqa dhalika madhara wax sharafkayga wuxuu gaari buu cirku gaari buu ee iftiinka yagiiba meel ka dheer inaan gaadhnana waa wadnaa buu markaas nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ila ayn xaga cirka u dheer ila aljanna jannada buu marka waxaan leeyahay safarka maanta ku ka dheerna waan rajaynaynaa oo ah mutaxida in lagaaga yeero oo la isku raaco oo la yaraa dalkani wuxuu iska dayacay midnimadiisii aw gooniisitaagiisii caalamka uu ku magacaabay iyo yaa maanta u soo noqday oo dawlad madax bannaan u noqday oo madaxweynaha Allah u naxariistay Maxamed Haaji Ibrahim gaal shacbigiisii uu ugu taag waayay waqtigaa joogay ee talinayay warsadexda bilood ee safaaraduhu inoo imanayaan ay dalkeena safiiradu imanayaan safaaradaha aan dibadda u dirayno inta aynu sugno dibadna walaalahay ku khidma alla midowna haba ku celin baa la yiri ereyga haba ku celin baa la yiri tiina inoo soo noqotaan ilaahay xaqiiqa rajaynana oo la ictiraafo adduunyada ictiraafo taasi way iga tahaniyada talabixin guud weey madaxweyne dalka aad madaxda ka tahay waad ogtahay منطقة أوكيا لو منطقة أوكي ما هبطنا وضح الصوماليين أردني ومنطقة أوكي ما بدن إن كان ما يلقي ما بدن إلهي من هذا جمهورية الصومال لان أي نهاي زرع عدة وحن تراكم بحنا إياه إلى الحوج الصارفة وحصل صارك وضح كثير وحلوق السوسيال لها زرع عدة الحوج السوق المورها من عادين تتعلى شركة أما إن شركة ذي إنها النقدان أما شركة أجانبها النقدان يجنا أدمال جلسات أو شقاسيس ما شرعي ما بنانا إن قال أنت اعتماد الله يرى فقط الله يرى قط الله يرى تاع شريعة الموقرة لكن واحد شريعة وقش هي شركة الله كانوا إن رجع قوم بدن أجنبية أما إسلام هذا لما قالوا هذا الله حسابتنا وحي صوص صاران الله حسابتنا وهذه أكيد دول الخليج أول ما يهين بطرق إنه يوصل صاران وحوصل صاري
dad aqoon leh baa u soo saaray dadkeennu waxba kama soo saari karayaan sida shacbigu imanka u fadhfadho waa wax yar laakiin dawladdu inay ihtimaam weyn ay siiso sidii sharikaduhu dhulka ay wax uga soo saari lahaayeen kadalik sidaas oo kale badda idile inagu meersanay intaa leeg inaan ka faa'iideysan kamana faa'iideysan karna badda haddii wadooyin isku xidha aynaan helin tala bixintaydu waa intaa weeye waxaan kugu bogaadinaynaa oo kale waana si gaar ah kugu bogaadinayaa ballan nabadgelyada aad ku baaqday ee meelihii dhibaatooyin colaadii ay ka jireen nabad aad ku ballan qaaday guddi gaaran aad u samaysay waanu ku ducaynaynaa ilaahay qabuul inuu inooga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu